midaysan mabda iyo aragti siyaasadeed taasoo ay u arkaan in lagu horumarin karo dal iyo dad. Soomaaliya waxaa ka hirgalay nidaamka xisbiyada badan oo horseed u noqon doona in doorasho qof iyo cod ah laga hirgeliyo dalka. xisbiga Wadajir waxa uu ka mid yahay xisbiyada sida sharciga ah uga diiwaan gashan Soomaaliya. Juun 2016 kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin, aqoon-yahan, xildhibaano iyo dad bulshada u dhaqdhaqaaqa ayaa looga dhawaaqay dhismaha xisbiga Wadajir. Ujeedooyinka xisbiga loo aasaasay ayaa ah u howlgelidda in la helo dawlad casri ah oo ku dhisan sareynta sharciga iyo xoojinta dhaqanka madaniga ah ee dimuqraadiyadda si loo helo cadaalad bulsho oo adkaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed. xisbigu waxa uu ka shaqeynayaa isu keenista xoogga siyaasadeed si loo gaaro ujeeddo mid ah iyo dadaal midaysan oo lagu furdaaminayo mushkiladaha siyaasadeed si wadajir ahna loogu howlgalo helidda siyaasad caafimaad qabta oo musuqmaasuq ka fiyow kuna sifaysan hufnaan iyo karti. xisbiga Wadajir hiigsigiisa waxaa ka mid ah sidii loo heli lahaa bulsho Soomaaliyeed oo ka fiyow qabyaalad kana fog gacanka hadalka iyo xagjirnimada diineed lehna wacyi iyo dareen qarannimo. xisbiga waxaa mabaadi'diisa buddig u ah oo howlgelidda sugidda amniga iyadoo muhiimad gaar ah la siinayo dhismaha ciidan qaran oo ilaaliya dastuurka dalka iyo madax bannaanida qaranka. xisbiga Wadajir wuxuu ka hortagayaa ku takrifalka hantida iyo awoodda qaranka wuxuuna ka howlgalayaa dhismaha hay'adaha maamulka dawliga ah gaar ahaan kuwa maaliyadda iyo maamulka guud si loo ilaaliyo xaqa muwaadinka Soomaaliyeed. xisbiga waxa uu muhiimad siinayaa xoojinta iyo tayeenta guunka dhisidda maamulada heer federaal, gobol iyo degmo iyadoo la hirgelinayo nidaamka federaalka si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah taas oo sal looga dhigayo danta ummadda Soomaaliyeed. waxa halku dhig u ah xisbiga Wadajir is-ogol, isla gudoon, talo aan cidna laga tagin, cidna laga tashan. xubinimada xisbiga Wadajir waxa ku beeri kara qof kasta oo Soomaali ah oo xisbiga Wadajir kugu martiqaadaya inaad xubin ka noqoto. wixii faahfaahin ah kala xiriir ciwaanadan.